لما دول رعاية مكارب خليها مكارب لا كاقا هذا قميص لا $5 حد أوكي حد مكان ليش مرة وحاس أنا ودا شلي أنا نوارك تبي wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo 30 kiiloomitir ah dhismaheedu maal ka sukow waxa ku baxay nafta dhalinyaro Soomaaliyeed iyo kuwa ajaanib ah sababtu waxay ahayd in halkan lagu maro dhib la'aan dadkuna ay ugu noolaadaan si nabadgelyo ah laakiin riyadaas waxay dhalanteed noqotay markii ciidan ka tirsan dawladda ay soo dhigteen ku dhawaad 10 isbaaro oo midiiba lagu qaado lacag aan ka yareen $3 dadka ayaa halkan si weyn loogu jirdilaa haddii ay dhiibi waayaan lacagta baadda ah ee laga rabo askar aan wadan darees ciidan qorigana uu ka soo horeeyo oo kaliya raadinaya lacag baadda ayaa halkan si weyn ugu xoogan هذا الحين كهرباء تي دايا كمر حاجة قلي جست ناودا كهرباء تاجن تاي دايا كمر حاجة ما فوضى ما ودنا ديار واني العكس طورنا موتا وده لو فاي صار فيني لمبر جيسك لمبر جيسك لمبر جاسك لي وراه قاري قاعد راعي هذا الدايا يقول هذا لو دوري lixdii bisha Juun oo ku beegneed shalay oo xad ah koor barqa ah ayaa halkan ku marnay safar qarsoodi ah si aan uga soo warranno halis weyn oo ka jirta wadadan waxaana ku soo aragnay dhismaha laami qurux badan oo iska xiran gaadiidka oo maraya xaafado qardajeex ah haweenka foolanaya ee dadka xanuunsan ee degan xaafadda macaan iyo goobo kale oo aan lahayn wado ay soo maraan askar wajiyadooda aad looga cabsanayo oo gaari kasta ka raba lacag u dhaxaysa $3 ilaa $10 iyo dhibaatooyin kale oo culus $2 رعاية مكارب خليها مكارب لا كاقا هذا قميص لا $5 حد أوكي حد مكان ليش مرة وحاس أنا ودا شلي أنا نوارك تبي طول اللي برك هذا ودا سؤال من ذاك يريش كان ديجنا قاري $2 كان دي قدامنا بريد صبح البوع برا سكو برا سوي عليك كلام أكثر ثاني مركو هالك $1 نقول جوسة راسني سدا فرتي اللي قفك هذه أنت نارت ما هذه أنا نارت قفك كل نارت أنا كأجدي ما يحرك تكسم ساي وعم صادق كذي والله يا أخي بيس يحضر كذي ساعة كرة فحم يا رجال أنا عندي بصدق صار ناطط كاست هذا ما darawalkan wuxuu ka mid yahay wadayaasha gaadiidka BLka ee ka shaqeeya inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye waxa uu sharaxayaa dhibaatada ay ku qabaan marista wadadan wadada aad iyo aad horta dhibaato aad iyo aad weyn oo ka qabnaa wadada sidii loo wali xiray waana la dhisay markii la dhisay kadib wadada sidii u xiran tahay lacag tiro badan wadadii oo xiran oo meel qaldan aan ka galayno hadi isbaarooyin tiro badan ataa wadada adiga waxa taalo 5 isbaar ataa wadada aniyo meesha laami la galay $3 waaye علامة $6 واي شيء بوبوت كالعال وقذا لفول سوق كله تايدن $6 بران ولا قذا هذه يسكو جيس معنتي وضاس يسوع إنه ربع مكان شقدر منه هذه الحساب وشيء $6 العوي به مر والبقول هل بونا أو لفول ولا جرماني أنت كلا مر والبنا قال قذا معناه قرط الجحياس أمرينه لا يمقوا على فكرة لكن وحيرين يهضوا وحيرين ولا ودقيا والعك هذه لا يمقوا الفروق بورينا العك تلاقي قاضي مايو وصوبته وعلى جابه inay baraan baxaan inay yaraan lacaga maxaa waaye laakiin hadeertaan way u xirantaa wadadaas anaga shaqo laga hayo uma jeedno
waxay u xiran tahay waa lacagtaas hadartaan aan u jeednaa war umuladii dadkii sheeg masaakiinta ahay gaari dameeradii maalin hore waxaan u jeeday gaari dameer rar wado oo 6 qofood loo kicinayo meel buur inoo ka soo dhacay baawur sidoo kale to wadada inay ka baxday meesha ku qallimatay waadamo waaweyn laamiyash geesooda loo qoday marka waxaan codsanaynaa haddii mar laamigii la dhameeyey in noola furo fasax laga dhigo oo dadkan lacagaha qaadayo saa'idka oo nama qabtaan marka cabashadaas aad iyo aad ku weyn way jirtaa cid loo cabaayo cid laga cabaayo uma jeedno maanta waxa meesha jooga waa askar iyo wax qori wata kaliya waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waa meesha ay ka dhacaan qaraxyada ugu badan ee miinooyinka dhulka la geliya ah waxaana dadka ku dhintay ka mid ah xubnihii ugu badnaa ee maamulka deegaanka Garisbaale waxaana ugu dambeeyay gudoomiyaha deegaanka Cabdiraxmaan Garyare oo halkan aad looga jeclaa dadka degan inta u dhaxaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye waxay ku qasban yihiin inay laamiga ka lugeeyaan masaafo kasta oo gurigooda u jiro mana oga sababtay u marayaan ciqaabtaasi sidoo kale ma mari karaan wadada cusub ee la dhiso oo xiran meedkii qofkii ku dhintay xaafadan ayay la lugeeyaan ilaa qabuuraha maadaama uusan gaari xaafadda geli karin intii aan wadnay baaritaankan waxaan isku daynay in aan la hadalno dad kooban oo aan isku sheegnay inaan nahay suxufiyiin balse waxay noo sheegeen inaysan awoodin sababta oo ah waxay ka cabsi qabaan in la beegsado markii ay hadlaan kadib qaarkood waxay nooga digeen in halkan ku sii nagaarno sababo la xiriira amnigeena balse waxay si weyn ula dhacsanaayeen in aan soo bandhigno dhibaatooyinka culus oo ay qabaan askarta ku sugan wadadan dhammaantood amnigoodu wuu dayacan yahay Muqdisho iyo Afgooye intii aan u sii soconnay iyo markii aan ka soo laabannay askartana ma aysan weydiinin wax dhaafsiisan lacag $2 ah xataa ma aysan fiirin waxa ku jira gawaaridii aan wadanay sidoo kale intii aan wadnay baaritaankeena waxaan ku ogaanay in ilaalinta ammaanka magaalada Muqdisho uu ka bilowdo kontaroolada ciidanka booliiska ee ku yaala wadada wadnaha iyo midka ku yaala beerta jaadka ee gudaha Muqdisho wax ka qabashada arrintan waxay ka muhiimsan tahay shaqo kasta oo hortaala xukuumadda Ra'iisul Wasaare Roble sida ay qabaan dad badan maadaama ay halis wajahayaan kumanaan qof oo wadadan si maalinlaha ugu safra iyo haweenka foolanaya oo jidadkii laga xiray su'aasha dad badan ay qabaan ayaa ah ilaa goorma ayuu Ra'iisul Wasaare Roble ka jawaabi doonaa halista weyn ee ka jirta wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye Agasta.